isku day aan sameynay markaan la hadalnay walaalaheen shantii xubnood labana madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo baarlamaankuna ay ahaayeen isku aragti madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii saddexaadna waxa weeye dhinac bay ahaayeen khilaafku wuxuu ka yimid asalka ahina waa shantaa xubnood weeye galmudug sida ay ku timid nin waliba waa ogyahay waxaa leeyahay haruub ninkii soo lisa la ogyahay ninkii rabaa ha sido yacni dhibaato intii u soo gashay ee soo gaarsiisay meeshaan يعني ولا وذا قف ولا بوجه لكن لما وضع حس كرو قلمذوق دبعتها أول بي وحي للي عيسي أفر دبعته أي للي عيسو لسكراد هيدو صريح لسارني وحيتها أفر دبعته دقموي بدنا أو كمل رير قلمذوق رير قلمذوق نحق له shabaab baa haysta oo 7 sano 8 sano ka ilma dhalay oo la haysta oo aan la oran wariyaan naga maqan ismiin lama oran war maxaa naga maqan lama oran intii wax dhisatay baa qamadhuursato madaxaas gashatay galmudug markii la dhisay labay u ka qaybsanay qayb baa maqan waxa maqan walaalaheen ahlu sunna wal jamaa oo degmooyin iyo maamul dhinac kale jira oo ahayd maalintii halkan lagu unkay in la doono ahayd wali inaan lagu guulaysan waxa weeye waa nasiib darro kale waa meesha laga dhutinayo qayb bay ka tahay waxaa nasiib darra maantii la dhisay ilaa maantay inaysan galmudug wax horumar samayn kana siib kana saar kana tuur kana celi kana bedel ayay ku jirta waxa nasiib darra afraada raggii loo dhiibay maamulka inay markaan shalay ku dhexdhexaadinay oo markii hore gacanta isku saarnay oo la wada qadeeyay oo la isxaal siiyay oo la isdhudhunkaday oo la yiri aan xalay ku kala seexnay wixii aad ku wada shaqayn lahayd oo la isku qabtay si aysan u laaban si hore loogu socdo inaan road map u samaynay wixii lagu heshiiyay in la sameeyo saaka markaan isku nimid waxaa naga hor timid ma wiin ogeyn anu inaan madaxweyne yahay ninkii madaxweyne ku-xigeenka ماذا مدحويناها ولاد النومات الشيقين مايا ومعان نقول له قوينيسي إلى در هذه الشرع يحال انت دمانيني ما تراور ماشي مدحوين إلا اسكتك كان أيام بابا لقى مغنايا متكالة أجيتك كوتشيرة أوله كان ما هنا وانيقا أنا وضع wuxuu yiri labada wiil harag ku diriraya isdilaya oo odagii dilay oo hadda koorna aan ka sheekeeyay oo odagii la yiri maxaa wiilasha u dilaysaa oo yiri haraga yaani goroga la dili doono haragiisa sanaada laga bixin doono sumalka ay dhashay yaani haragaas ana qaadana asna wiilku waa dilay wiilashii wuxuu yiri haraga ay ku dirirayaan hooyadooda sida gacantaas odaguna habartu u rabaa meel jinni xerag jinni soo meesha uma muuqata harag neef maqan haragiis yaa wiilasha ku direen odagiina ku dilay habartina wax ma haysato ciddii kala dhimatay waa meesha galmudug taa galabtay waxaan u soo jeedinayaa codsi kulligiin waa idiin soo jeedinayaa galmudug walaalayaalow yaanan cidna ku eedayn fiiri adiga waxaaga adiga ka hadlaysan haddaan anagu
caadada iska ah siyaasadda inaa hadba meel la aado hadba qof in la xagto hadba madaxweyne hadba guddoomiye ku-xigeen hadba maya war waxa hadlaysan adinka idinka hadlaysan yihiin maamulada agtiinaana kama hadlaysnaa xamarna kama hadlaysnaa cid kale idinka hadlaysan yihiin marka gurigiinna yaa idinla dhaqaaya 11 muxuu ahaa deegaan doorasho odayaasheedii iyo waxgaradkeedii halkan joogay iyo gabdhaheedii iyo wixii la ogaayay oo ku bixiseen inta isku tagtaan caawe yaan meeshaas laydinka dumin waxaana ka bilowdaan shantaani inta u yeertaan ninkii inka amar qaatana wax u dirsada ninkii idinka amar diidana awoodii gacantiina ku jirtaa baarlamaankan Soomaaliya leeyahay waxbu geedaha ku kariyaa waxba inta ku kar wixii keentay adigu Soomaaliya horta adigu saada markii hore aad waxa nin waliba fakarayay Allah ilaahay yaa cid dharbaax yaqaan yaa kan yaa cid u warxun horta kan intu nacayn la asaga xaggan iska geena xadaas yani waxa aanu warxumana waxay tahay waxaan u socday in wax idin hagaagaan shantaanina idin kama adkaan karaan 80 baarlamaankan in kama adkaan karaan odayaalow inta iyo gabdho iyo waxgaradow iyo culumo iyo dhalinyaro inta isku tagtaan oo shir qabsataan galmudug aad adunku u talisaan oo dhulka inka maqan oo la haysto xoreysa iyo kuwa maqan inaad nabad ku doontaan inaad isku baadi goobtaan maamul fiican dhisataan wixii isku dubaridataan adana uma maqnaa alna uma qodna waa mahadsantiin